subscribe our channel ka like tan nagu dhiirigeli inta lacag ka magadno Bravo Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan xaqiiqo wafdi hogaaminayo duqa magaalada Bravo ahna gudoomiyaha magaalada Bravo ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda Koonfur Galbeed ee Bravo waxaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha dhalinyarada iyo qaar kamid ah culumaad diinka degmada Bravo iyo bulshooyinka reer Bravo gudoomiyaha ayaa safar 3 isbuuc qaatay ku maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa sidoo kale soo dhaweyntiisa ka maqneen oday dhaqameedyada degmada Bravo iyo ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliya qeybaheeda kala duwan gudoomiyaha ayaa loo soo galbiyay madaxtooyada caasimadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana meeshaas lagu sameeyay xaflad soo dhaweyn ah oo heer sare ah ugu horeyn waxa meesha ka hadlay oday dhaqameedyada degmada Bravo iyo ururka dhalinyarada ururka haweenka xafladan quruxda badan waxa maanta ku soo dhaweynay kuna soo dhaweynaynaa hadeenahay deegaanka Bravo gudoomiyaheena ku maqnay bariyahan shaqo qaran maaragtay hadii Ilaahay ku soo mogol yahay saakana dib ugu soo laabtay degmada Bravo iyo nabadoonadeenii sharafta ahaa oo ayaguna hawlo qaran ku maqnaayeen ayaan meeshan ku soo dhaweynaynaa insha Allah gudoomiye ku soo dhawow magaaladaadii magaala xeebeedka magaala madaxda Koonfur Galbeed Bravo ku soo dhawow magaaladaada shaqaad noogu maqnaaday insha Allah shaqadii aad noogu maqnaadna adiga ayaa maaragtay nooga warbixi doona maaragtay hadii beedinkeeda leeyahay waxa kaleeto oo maaragtay si qurux badan oo reereyn badan meeshaan ugu soo dhaweynaynaa maanta tahoolka xafladu ka dhacayso nabadoonadeenii sharafta ah ee ayaguna noogu maqnaa hawlo qaran noona soo laabto noo yimiday ayaan ayagana soo dhaweeyay gudoomiye magaaladan aad arkayso waxa waayo magaalo dadkeedu oo maaragtay boqolkiiba boqol wada shaqayntu ka dhaxayso oo isjecel maaragtay hadii Ilaahay ku samoogol yahay intii aad naga maqneeday shaqada boqolkiiba boqol meeshii aad ogeeday iyo meel ka sii sareysa amba meel lamida ayay ku socotay maaragtay hadii beedinkeeda leeyahay waana maaragtay ii sheegay boqolkiiba boqol reereyn iyo qurux iyo samaan ayay ku dhamaatay shaqadeeni adigana noo yimiday tafadal ku soo waxa weeyaan maanta waa maalin qaali ah waan ku soo dhaweynay xafladda quruxda badan gudoomiyaha oo bariyaha ku maqnaayeen hawlo shaqo ku maqnaay oo maanta noo yimid aan ku soo dhaweynay gudoomiyaha ku soo dhawaw xafladda quruxda badan wixii hadda la hagaajiyay inta maqnayna waa la hagaajiyay wixii dhimana waxa laga rabaa dhamaystirto hadii laga rabaa wixii meelaha gudaha xirtay wixii ka furfurmay aan doojiso wixii waxa weeyaan hagaajiyay iyo meesha ku ogeeyay meel fadhi ku joogana meesha u deyso wixii dhibana dhamaystir laga rabaa dadka marka reer Bravo dhamaantood waxa la rabaa inay la shaqeeyaan gudoomiyaha degmada Bravo iyo dhamaan maamulka inay la shaqeeyaan rabaa odayaasha degmada Bravo ayuu xogaa soo jiireeyay oo waxa weeyaan anaga si gaar ah u salaamay ayagana waa saaxiibadii odayaashaydii bariyaha magaalada waxaan u aad mugdi maanta iftiinta odayaasha noo yimideen ku soo dhawaada odayaashayda saaxiibadii ku soo dhawaada waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo odayaasha dhaqanka oo ayamahan nooga maqnaa hawlo qaran ma sha Allah ayna hadoo Ilaahay soo nabad celi waa Ilaahay mahadiisa ma sha Allah waxaan idin leenahay markii ugu horeyso soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaan kaloo halkaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada asagana oo nooga maqnaa hawlo qaran oo asagana insha Allah waxaan ugu fadhinaa waxyaabihii maanta degmada oo ugu maqnaa insha Allah berito nala imaado iyo waxyaabihii qabiilka galay insha Allah waxaan leenahay garabka Ilaahay ha galo insha Allah hore u soo leenahay waxaan halkaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha degmada Bravo Liibaan ugu kore Ismaan odayaasha deegaanka nabadoonada mudooyinkan ka maqnaayeen degmada noo suurtagelay anoo caafimaad wada qabna mas'uuliyiinteena maqnaayeen aan si nabadgelyo iyo caafimaad aan ku soo dhaweynay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan alxamdulillah waxaan leenahay gudoomiye soo dhawaa adina nabadoonadaada ugu dambeyn waxa warbaahintu la hadlay gudoomiyaha degmada Bravo
Dr. Liwan Abuukar Cismaan Baafe oo ugu mahadceliyey dhammaan inta ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa. nabad meelaha ay magaalada Baraabo lagula soo celiyey ayaa maanta iska saan uga mahadinaynaa maantii sidaa dadkaan waxaan ku baxay safar shaqo oo aan magaalada Baraabo uga baxay kuna aaday magaalada Makro xarunta gobolka Shabeellaha Hoose taasoo uu nooga dhacay oo qorre iyo kulamo ay lahaayeen وزارة الدخول وقاموا وزارة الداخلية جميع الطرق الجمهورية حتى وزارة الدخول إن شاء الله وصل كل ما هو أكثر من الأمر وتوجد في عقصات الماضي كنت من الله ما أقول لكم وأنا أترى على القلماء الأداء الداخلية أما وحدة تقول المرأة صوماليا كويس من ووطنا وهوليانا gobolka Shabeellaha Hoose aan kala soo shirnay oo baahiyii degmadan ay lahayd iyo sabuurtaayaha gobolka loogu gudbiyey ayadoo la xiriirayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha Najax waxaan soo qaadanay kulankaas qiimaha badan oo magaalada haddii la yidhaahdo baahiyaheeda oo aan idinka hore u gudbisay ay ugu horeeyaan jidkan isku xira garoonka iyo degmada iyo baahiyo kale fara badan oo qayb ka mid ah ogtihiin maanta inay shaqadooda socoto iskuulaadka ugu horeeyaan intaan hadda maalmo ka horna ay ugu imaadeen dhamaystirkii iskuulaadkii 10 ahaa qaybana ay ahaayeen dayactir qaybana ay ahaayeen dhismo ay ka wada bilaabay degmada waxaan uga mahadcelinayaa kusumaha gudoomiyaha degmada ee hawshaas qayb ka qaatay iyo laamaha amniga golaha deegaanka odayaasha haweenka dhammaan ay u ahayeen arrin isaga duwan inay qaataan mas-uuliyadda degmada maadaama aan ka maqnaa intaas kadib waxaad ka horeysaan oo in arrimaha odayaasha dhaqanka iyo qaybo kale ee ka dhacay degmadan oo qaybo ka mid ah odayaasha dhaqanka uu sharaxay halkay wax u dhaceen oo ilaa ay baydhabo ay u tageen waxaa muhiim ah arrin aad ka noqotaanay ma ahan arrin aad kaga sheekeynayno ugu dambeyn dadaalo ay bixiyeen mas-uuliyiinta ka soo jeeda degmada Baraabo ee xildhibaanada ah kuwa hadda jooga iyo kuwii horeba ilaa waxay la tagtay arrinkaas madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis oo bixiyey cafis madaxweyne una dardaarmay in degmadaas walkeeda iyo isku xirka dadkeeda iyo wada shaqaynteeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo sida aad ogtihiin waxaa la dhahaa caalamkaasi waxay leeyihiin kala qabasho degmadan waxaa u dhacay kala qabashadii mas-uuliyiinta maanta ugu sarreysay maamulka koonfur galbeed wasaaraddii arrimaha gudaha oo maxay ahayd dhammaan maamulada degmooyinka iyo hoos tagaan gobolkii dhammaan waxaa loo soo wada jeedaa haddii la yidhaahdo in degmo kasta oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose ay ugu horeyso magaala madaxda koonfur galbeed in horumarkeeda iyo xasiloonida laga shaqeeyo wuxuuna ahaa dardaaran uu madaxweynaha bixiyey waxaan kaloo si gaar ah kaga wadaagsanaan ugu horeeyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ugu soo salaamayo mas-uuliyiinta degmada odayaasha dhaqanka iyo inta kaleba wuxuuna fariin ku soo faray in ayaga isku duuban yahay magaaladaas laga shaqeeya xasiloonideeda inay soo gaarsiinayo waxaad ogaataan degmada Baraabo ma ahan ana isdhexina mararka qaar kasoo bilaaba qoflaan degma aan laga waqaynin waa isdhexina waa degmo laga warhaayo 5 sano soo socotana howlo badan laga qaban doono madaxdana ay imaan doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan waqtigana soo haysa uu hogaamin doona madaxweynaheena iyo inta kale ee hoos timaado oo wasaaraddii iyo gobolkii dhammaan ay soo booqan doonaan magaalada insha allah
intaas waxay ahayd inaan ku marnay subscribe noo saar ha iloobin